markaska isku daaweynta Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnada Nabiga Sheekh Maxamed Weli ee magaalada Hargeysa. Sheekhu waxa uu ugu bishaareeyay bulshada degan Hargeysa iyo nawaaxigeeda in lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran iyadoo markasku uu soo guuray xaafadda shacabka. Waxaan koonfurka soo eegaya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca galbeedna waxa uu dhow yahay xarunta dhaqanka. adeegan u haynay waxa ka ahaa inaan si yar oo fudud sixirka uga furno si yar oo fudud maaragtay haddii alla idmaayo durrada dhibaatooyinka keenaan ay ka mid tahay faaliga kansarka cudurrada guud oo dhan cuduraan waxaan keenin ma jirto inta waan ku dabaybnay halkan waxaana ka marqaatay namada kamarada duubay Cumar iyo oo dad badan ka duubay oo Ilaahay gacmahayga shimbir ku siiyay Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga ilaaliyo shadaadiinta hawshaana mar walba nagu sii guuleeyo ودعدي إن بدن بيحمسون إن بدن بيحمسون ويقولوا المهن سحر باهية هدي السحر هينا محايا هالكاس وحكوا جايين أما عالقي لكم الطريق أما تعاجي ما كم تقطع إن شاء الله وعافاس بإذن الله وعافاس ما أنتوا وين ما تقطعي وعاف ما تلو وفي عنكم وحكسوا دعتي مصابير تاسك صداتي halka waa laba waxa ka soo dhacay kala shan musfaar oo ka horeeyay toddoba musfaar baa soo dhacay kuwaas saarka markii aan keenay ayaa halka ka soo dhacay shaqootiisa markaskan Maxamed Weli alxamdulillah rabbil caalamiin gabar yar oo habarruhay baan keenay xanuun baa ku dhacay waa la aamusiyay marka maxay ahaydee markaanu geynay Ilaahay shimbir buu ka siiyay isaga inuu waaxideen marka gabadh yareed iyadoo caafimaad qabta ayaan halka kala noqonay Ilaahay dartii. Sheekhu waxa uu ku shaqayn doonaa ayaamaha uu usbuucu ka kooban yahay marka laga reebo maalinta Jimcaha. Wixii faahfaahinay inta dheer kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. Markaska isku daaweynta Qur'aanka Kariimka ee Sheekh Maxamed Weli ha moogaanina.